warbixinta kooxdan xayiraada xagga hubka ee saaran Soomaaliya Eritrea ka soo baxday waxa lagu yiri macluumadan waxa la helay waqti fog waxayna ka turjumaysaa dhigmiirashada madaxda qaranka iyagoo dana qaas ah u eegaya ayna muujinayso meesha ugu yar ee shirqoolka si loo weeciyo hantida qaranka ee badda ku dahsoon si qiyaano aanan cadeen ah inta badan hantida Soomaalida ee badda ku dahsoon waxay dahsaneed laga soo bilaabo 1991kii xilligii colaadda dawladda dhaxana meesha ay ka baxday iyo lacagta kaashka iyo dahabka intii lagu guda jiray 20kii sano ee la soo dhaafay sidoo kale hantida dawladda Soomaaliya ee carada shisheeye taala sida ay ahayd warbixinta ayaa sida lagu yiri waxa ugu badan ee ay kooxdu ku qeexday shirqoolka hantida qaranka Soomaaliyeed loo geystay waxa ku lug leh shirkad Mareykan ah oo lagu magacaabo Shulman Progress madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xafiiskiisa iyo sidoo kale haweeneydii wasiirka arrimaha dibadda ka ahayd Soomaaliya Foosey Yuusuf Xaaji Aadan iyo shakhsiyaad kale oo isku xirayaal ka ahaa dawladda Soomaaliya iyo shirkadda Mareykanka ee Shulman Progress gabi ahaanba dhinacyada lagu eedeeyay shirqoolka hantida Soomaaliyeed inay geysteen ayaa iska beeneeyay inay ku lug leeyihiin arimahani waxayna badankood ku eedeeyeen madaxa kooxdan oo lagu magacaabo Gerard Cobra in baaritaankiisu uu shaki yahay isla markaana warbixintiisu ay joogteynayso cadeemo sal iyo raad aan lahayn wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Foosey Yuusuf Xaaji Aadan oo hadda ka tirsan golaha sharci dejinta Soomaaliya ayaa tiri iyadoo jawaab ka bixinaysa warbixinta kooxda Monitoring Group ay soo saartay kama faa'iidin ama hanti kama aanan helin shirkadda Shulman Progress ama qandaraas waxayna hadalkeeda ku sii dartay inaysan cadaadis saarin Yusra Abraar oo ahayd gudoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee Soomaaliya hadafkeegu wuxuu ahaa in la dhiso muuqaalka iyo magaca Soomaaliyeed ma ahayn shirqool iyo inaan sumcad dilo magaceega iyo magaca dawladeeda ayaa tiri Foosey Yuusuf Xaaji Aadan oo ka hadlaysa eedeenta xafiiska madaxweynaha ayaa yiri iyagoo eedeenta madaxweynaha loo soo jeediyay ee shirqoolka hantida Soomaaliyeed ka hadlayay kama hadleeno eedeenta maxaa yeelay si shacsan looma baahin balse hay'adda reer Mareykan ee Shulman Progress ayaa uga hortagtay warbixinta kooxda si aanan caadi ahayn iyagoo warbixinta wali aanan arkin Jeremy Shulman oo kamid ah shirkadda Mareykanka ee lagu eedeeyay hantida Soomaaliyeed inay dhunsatay ayaa yiri hantida guud ee Soomaaliya si hagaagsan ayaa loo maamulay shaqada aan qabanay marka loo eego wuxuuna ku eedeeyay natiijada warbixintan ee kooxda inaysan runta ka tarjumeenin isla markaana ninka la yiraahdo Gerard Cobra oo ah ninka madaxda u ah kooxdan dabagalka xayiraada xagga hubka ee saaran Soomaaliya Eritrea uu yahay nin aan la socon gabi ahaanba waxa Soomaaliya ka dhacaya sheekadiisuna ay tahay mid waxba kama jiraan ah haddii natiijadan ay saxan tahay warbixinta kooxda dabagalka ee qaramada midoobay xayiraada xagga hubka ee saaran Soomaaliya Eritrea waxay xanuun iyo mugdi lagu tuura ku noqonaysaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dawladdiisu dhibaatooyin fara badan ay la daalaadhacisay iyadoo sidoo kale walaac ku noqonaysa deeq-bixiyaasha shisheeye ee dawladda Soomaaliya lacagaha balaayiinta ugu deeqa sanad kasta ee hanka kale in la dhiso wadanka Soomaaliya oo muddo foodo ku soo jiray dhinaca kalena warbixintu waxa ay leedahay Muuse Xaaji Maxamed Ganjab oo ganacsado Soomaali ah iyo ruux Mareykan ah oo isna lagu magacaabo Cabdicasiis Xasan Giyaajo iyo amlo ayaa waxa ay fududeeyeen heshiis dhex maray dawladda Soomaaliya iyo shirkadaasi Mareykanka si boqolkiiba 2 ay u qaataan labada xubin ay u qaataan arintaasi dhaqaalaha kheyraadka badda Soomaaliya ayna shirkadu ka soo saarto inkastoo oo aan la sheegin inta boqolkiiba madaxweynaha Soomaaliya uu u qaadanayo